ayaa gobolada Soomaaliland ka furan sida dukaamada kale waxaana dawooyinka sumaha oo ay u muuqdaan kuwa loo iibiyo sida alaabooyinka kale dadka aqoonta dheer u leh arrimaha deegaanka iyo beeraha ayaa aragtidooda saxda ku cabiraya maadaama dhulka Soomaaliland uu yahay dhul u badan qallayl dadkiisuna ay dadaal xooggan ugu jiraan inay wax soo saar ka soo saaraan in talooyinkan la helo waddankeenu saynoognahay waxweeye waa wadan marka la eego geographical ama xagga geographical leego wadamada la yiraahdo waa wadan qalalan micna ama maxaa ku dhahdaa arig country waxa la yiraahdaa micna wadan aan roob badan helin weeye roobkeena helaa waxa weeye waxa laga yaabaa sanadkii marka la isku celceliyo meelaha ugu roobka badan waddankeena waa ilaa 500 ilaa 400 ku tala 500 oo maxaa ku dhahdaa weeye military marka waa roob yani meelaha wax ka bixi karaan way yaryihiin laakiin hadana dadku hadii ay beeruhu laba qaybsamaano midna waa waxa la yiraahdo rain fed ama roobka lagu waraabiyo ama irrigation lagu sameeyo oo waxa la la waraabiyo oo ama dam lagu waraabiyo ama ceel lagu waraabiyo ama dooxiyo laga waraabiyo si joogta loo waraabiyo ceel waxa inta badan waddankeenu badan yahay waa rain fedka waxa la yiraahdo ama xilli roobaadka dalaga laga sugo xilli roobaadka beeraha laga sugo sidaasay tahay wax badan baa laga soo saari karaa waddankeena laakiin waxa weeye dawladdu iyo wasaaradda beeruhu maxaa policy uga yaala ama siyaasad iyo jihayn uga yaala dadka aqoontooda kor loogu qaadi karaa beerada looga taageeri karaa maxaa ku rahdaa wax tar yani muuqda loo qaban karaa beeraleyda waxa jira cross pollination waxa la yiraahdo oo siirkii waa la gudbinaya cayayaanka shinnidii iyo xayawaanka yaryar kale ayaa gudbinaya marka laga yaabo siirkii asalka aad u leeyahay laftoodu inuu waxa la yiraahdo contamination ku dhaco oo way sumeynayaan laftoodu marka siirkaagi asalka laftiisa hadaan waxaan iska muusin iska ilaalin ayaa sumoobaya waxa khatar weyn baa arrinta ka soo socota cid ka hadasha iyo cid arrinta faaqida midna ma jirto halena waa xil saaran dawladda iyo xukuumadda wasaaradda beeraha iyo dadka aqoonta leh in arrimaha noocaas oo kale laga hadlo oo dhaqaalihi soo galaysa oo caafimaadkii soo galaysa oo xataa suntan la buufinaya lafteedu waa mid adduunka laga mamnuucay ayaa jirta waxa psychosis abuurto oo maskaxda dadka u dhinta ayaa jirta iyo nerveska damage karaysa waxa laga yaabaa dadka dad loo fiirsado cancer bay cause gaba carcinogen baa la yiraahdaa cancer bay cause karaysa ama maskaxda u dhinta nerveska qofka disha hadii research la yiraahdo beeraleyda hal la baaro buufimada isticmaasha waxa laga yaabaa intaas qof oo dhibaataysan oo arrimahaas ku dhacaan laga heli karaa laga yaabaa waxa laga wax khatar inagu soo foodle maaha meesha albaabku iska banaayay cidda doonta waxay doonto keensanayso ama ha dhacdo ama yey dhicin ama jim ha to ama yahanin waa responsibility saaran dawladda halkaana in laga soo baxaan qaba wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa iyadu qarankan u xil saaran arrimaha beeraha iyo horumarinta beeraleyda agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku wajahan iyo siyaasadda wasaaradda ee sumaha loo adeegsado beeraha qalabkii sida la socotaan wasaaraddu ma laha unitkii beeraha buufin jiray ama wax ka qaban jiray oo dee waa ogtiin halkaynu ka soo kacnay iyo halkaynu maanta marayno laakiin se khubradii way joogtaa wasaaradda beeraleyda waxaanu kula talinaa inaanay isticmaalin pesticideska ama se dawooyinka beeraha lagu daweeyey inaanay isticmaalin ilaa ay wasaaradda beeraha u yimaadaan oo aanu ku darro nin khabiira oo uu soo eego beeraleyda oo soo identify garayo cudurka ama soo sheego cudurkaasi wuxuu yahay taydnow dawada u qoro hase yeeshee beeraleydana waa la socotaano dukaamaha dawadii lagu iibiya awalla waxaa iibin jiray farmasiye u khaasa dawooyinka imakana dukaankaadkay ugu tegaysaa markaa intay iska yimaadeen bay dukaan ka iibsadaan siidkii baa lamid oo way iska iibsadaan siidka qaar baa intay siid iibsadeen waxba u dhali waayo ku haraaday ama waxii ay u iibsadeen haynu soo baxeen markaa waanu la soconnaa waxaanaanu kula talinaa annagaa idiin qorayno dawadii xafiiska wasaaradda beeraha ka hela department dhan oo la yidhaha departmentka cayayaanka ayaa wasaaraddu leeday oo khubaradii fadhido way raacaan qaarna dadka khabrada ee markaa cudurkii hebel baa ku dhacay dawaday u qoran ku haqo dawadaasoo midaan geedka waxyeelayna midaan xoolaha waxyeelayna midaan dadka waxyeelayna baa loo qoraya beerdhaweydan marayay waqooyiga gabilay beeraha la yidhaha eelgelisada waxaan ku arkay dad isticmaalay pesticide oo geedkiiba gubtay engegay because
ama tii ku habboonayd baan isticmaalin ama kuwaanta tiga ay ku darayaan ayay ka badiyeen markaa waxa beeralayda Somaliland u jeedinaya uga faa'iideysanaya munaasabadan marka ay la kulmaan cudur inay wasaaradda beeraha qofku hadduu xanuunsado waxa loo geeyay dhakhtar ama specialist ka cudurka haya ama mid guud oo dawada u qoran inaanay dukaanka dawada iibinayo u doonan dawadii ku habboonayd oo aanu garanayn marka hore ay yimaadaan wasaaradda beeraha si loogu qoro dawada ku habboon cudurka beertiisa ay beeralayda Somaliland ayaa wacyigelin iyo fahan dhab ah aan ka haysan habka loo adeegsanayo isticmaalka suntan arrintaasina waxay geeysiisay in dhibaato caafimaad iyo mid dhireedba ay ka soo gaadho iyaga iyo dalagoodaba waxa kaloo beeralaydu ay ka cabanayaan in hay'adaha arrimaha beeraha ka shaqeeya aanay wax talo iyo tusaalaha ka siinin ama taakula dhinaca dawooyinka si ay dalagoodu u noqdaan kuwa ay ka manaafacaadsadaan oo ay ka faa'iideystaan beertu way hawla badan tahay marka hore waanu jilcinaa marka dambana waanu qaabaynaa oo qaabkii wax loogu beeri lahaa aanu sameynaa xasharaadka ku dhasha waxa kamida diir xawayaano kale iska qoloftoodu adagtayna sunta dilinba sunaha oo kale dukaan baanu ka soo iibsanaa hay'ada nooma keenaan iyagoo dhowr nooca marka حشرات حليادنا حشرات وكل بدني وقت حشرات ويريا وقتنا وبدني إما كوك على حشرات وأد وبدني كدولة يا كدول كجلا يا كمرة كجلا أد وفر بدني خدنا وحن إلهكم هذين هذا وحي سرع عنو بيرنا وحمنا فعلوا نون قطع خورت الصن وجيب جيجا يعني صن عرض الدشان ويجرتها صن سرع عطيك هذا بدأ قياسي قلب في لو قياسي ما هينه قلب في فرح لقشني ما هيسمع يا فرح اللو قلني مركها وحنوي مك تهجن حبينا إنه صناع قارس كمان من نوع قفلته ما دام وديب عنك يا عرضي سرع يبقى وديبهم كوكيني beerbiyoodada oo kamid ah kuwa ugu badan ee dalagyada kala duwan ay uga soo go'aan gaar ahaan qudaarta ugu badan ee ka soo go'do bustaanada ku yaala Somaliland ayaa qudaarta waxa soo wajaha cayayaano kala duwan iyo duluna kala duwan iyadoo dadka inta badan gacanta ku haya beerbiyoodkuna ay tilmaameen in jahawareer dhaba ka qabaan sidii ay ula tacaali lahaayeen cayayaanada isticmaalka sunta ayaa sidoo kale ay ku tilmaameen in dhibaato caafimaad ay ka soo gaadhay iyaga laftooda waqtiga ay u adeegsanayaan beerahooda sunta lafteeda loo dehaa sunta lafteeda imika ama kala ma buufiyaba ama kala hadan buufiyo uriyaba wanta waxay dibiga u bandhaya dam uri beertana soo gelin marka buufiyo marka waxaan isdhaxdaa niyo hashiba ku gashay aad ku buufin jirtay beerta ya ayaan isdhaxdaayo hadii aan uriyaba waxaa la soo buufiyo inta salaga qaadaya madaxa markaasaan ku dooqaya dhalaan iyo xasan cunna markaa kasako beerbiyooda oo inta badan iyadoo ah mid cagaaran guya jiilaal ayaa waqtiga gugu urto waxaa jira dadka beeralayda oo iyagu beeraha roobka ka manaafacadsada waxa hal gandheer iyo qodaal ay u galaan sidii beerahoogu ay uga soo go'i lahaayeen dalagyo kala duwan balse sida beerbiyooda si lamida ayaa ay soo food saaraan caqabado lamida kuwaasi oo ay ka mid yihiin cayayaano kala duwan oo ku dhasha waqtiga beertu ay meel fiican marayso iyadoo aanay jirin xeelad dheer oo dadka beeralayda ee beerbiyoodu ay adeegsadaan suumo kala duwan oo ay kula dagaalamaan dulinada soo food saara hadhuudhka ama galeyda ayaa haddana waxaa jira caado dhaqana oo dadka beeralayda ay kula tacaalaan haddii ay soo food saaraan dulinada curyaamiya beeraha beer roobaadka waxawey ayaanka maxaan ku radaa wax la yiraahdo yaroo maxaan ku radaa yaha ku dhasha maxaan ku radaa la yiraahdo de laga buufiyo oo de buufis laga buufiya ma garanaysaa markuu hadhuudhku dhalo uu furiyaysto ayuu ku dhashaa markaas de laga buufiya kolkaan doono taxliishuma sida badan aan ku akhrina laakiin de waa dira keeno waa loo baahan yahay habko kale waan u dooranaa tamaado kale waan u dooranaa laakiin kala hadhuudhkaasay deewaan waxaan ugu buufinaa waxaan taxliish baan u dooranaa sida badan waa quraanka waa lagu daadiyaa quraanka lagu daadiyaa shibiro kolba waa sidii haday barwaaqo tahay way badan yihiin haday de waxa xamaraa ugu baahan xamaraa ugu badan oo de haday ay maxaan ku raadku barwaaqayna aad ba u bataan
haddii ay abaar tahay dee kuma way dhulka saab doontaa xamara markaa maxaa la isku celiyay xamara dee waa sariira loo sameeyaa waxbaa la fuuraa warfaa lagu celiyaa wasaade si haddaba aynu u ogaano isbedelada dhabta ee ku yimid siidhadhka kala duwan ee dibadda laga soo waarido ayaa waxaa farta ku fiiqaya dhibaatada soo foor saartay beeralayda dad aqoon dheer u leh arrimaha beeraha iyo deegaanka beeraha caynkaasi ay waddankeenu leeyahay waxaa baqdin weyn baa aniga yahay xagga deegaanka marka la eego dhibaato ka iman karta siiriska waddankeena yimaada siiriskaasi waxa uu u badan yihiin laba nooc ama siiriska loo yaqaano GM-ka oo genetically modified wax yani seed hiddaraaciisii la bedelay ama wax hybridka la yiraahdo oo iyadana maxaan ku radaa aan la wada bedelin laakiin meelaha qaar laga bedelay khatarna u ah guurina kara siidkii asalka ahaa waddankeena maxaan ku radaa hiddaa uu lahaa ka bixi jiray tusaale haddaan soo qaato dhowr wax baad soo qaadan kartaa tamaandhadoo kale ka soo qaad xabxabkoo kale ka soo qaad khudaarta kale ka soo qaad waxay ugu talagaleen shirkadaha waaweyn ee shirkadaha adduunka ugu waaweyn Cargill shirkad la yidhaahdo Monsanto waa Maraykan iyo Canadian weeye waxay ugu talagaleen inuu qofku markasta u baahnaado siidka uu u baahnaado oo halkuu intuu beerto dabadeedna ka u soo go'a uu bar ka dhigan lahaa ee uu hadhow isticmaali lahaa sanad kasta ma isticmaali karo markasta waa inuu siid cusub soo gataa soo iibsada waa waxa la yidhaahdo dependency culture baa abuurmaya oo inaad markasta iyaga u baahato oo siidkii aad soo gadato adduunyadu wadamada baa ka taxadiray arrimaha oo waxay samaysteen waxa la yidhaha seed bank yani bangi siid bay samaysteen oo way kaydsadaan siidadkooda Ethiopia inta inoo jirta ayaa ka mid ah kuwa ka soo horjeeda GM foodka iyo hybrid seedska oo iyagu mid ay leeyihiin bay kaydsadaan lana wax ku dhacaya hiddaraac maxaa markaa hiddaraaci wuxuu keenayaa inuu maaha kaliya inaad siidkii soo iibsato waxaa dhacaysa in fertilizers aad u baahantahay markasta fertilizer waxaad kaloo u baahanaysaa pesticide wax la yidhaahdo oo ah buufimo inaad buufiso oo aad markasta u buufiso markaasaa weliba sida loo manufacture gareeyey genetically ama hybrid loo sameeyey ayaa waxay keentay dawadooda mooye dawo kale cayaanka kama dhimanayo yani waxa ku talagaleen in dadku ku yeeshaan marka dawladdu waa inay siyaasad ka yeelataa inay baadho siiriska waddanka imanaya oo marka la baadho dabadeeto maxaan ku rahdaa la yidhaahdo siirkaasi waa GM food ama waa hybrid waddankeena ma ku hagaagsan yahay kuma hagaagsana mamnuuca ka mamnuuca waxaa jirta hay'adda FAO waxaanu ka wada shaqaynaa mashruuc training ah oo kii hore waxaanu ku qabanay jaamacadda Camuud waxaanu isu keennay 35 qof oo beeraley ah oo beeraha khudaarta ah oo aan isaga keennay Somaliland oo dhan haddaba inagoo dareemaynaa qorshe la'aan ku wajahan dhinaca isticmaalka sunta ayaa dhinaca kalena wasaaradda beeraha Somaliland ay dadaal ka wadaa kuwaasoo ku wajahan in beeralayda Somaliland la siiyo tababaro kala duwan oo ay ku horumariyaan beerahooda balse waxaa muhiim ah in farta lagu fiiqo in wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii ay ugu horumarin lahayd beeralayda Somaliland in ay dalagyada iyo siidhadhkooda kor u qaadaan balse ay meesha ka maqan tahay isfaham dhaba oo ku wajahan halka ay beeralaydu sunta u doonanayso taasina waa arrin u baahan in wasaaradda beeruhu ay sharax guud ka bixiso wacyigelin ay uga baahan yihiin dadka beeralayda wasaaradda beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland ayaa waxa uu sharax ka bixinayaa dadaalada horumarineed ee ku aadan dhinaca siidhadhka iyo tababarada ay helaan beeralaydu taleelka ay ku qaadanayaan siidka khudradda ugu habboon iyo qaabkii loo beeri jiray kajad la iska dhaxlay oo la bedelay oo dunida la haro maraysa technology cusub lagu bariyay qaabka loo beero hay'adda FAO waxay noo keentay siidad kala gedisan oo khudradda siidadkiiba waxa lagu sameeyay tijaabo beeraha lagu beeray waxa laga qaadanayay kaw quality-ga wanaagsan ee wanaagsan imankana waa lagu fidiyay dalka tababarka ugu dhamaaday markuu kaasi dhamaaday abuuriin baan ku qabanay kii beeraha roobaad ee garow iyo macnaha haruurka iyo galleyda iyo digirta lagu tijaabinayay
siirarkaasoo kuwii dalkeena iyo kuwa dibadda laga keenayba tababarkaasi marka uu socdaa 2 bilood buu socday dhaqso u soo xirmayaa dadkii 5 qof baan isugu keenay way baranayaan waxa lagu baranayaa nooca u wanaagsan hadhuurka nooca u wanaagsan galida nooca u wanaagsan digirta iyo waxyaabo fara badan oo kale lagu baranayo waana socdaa faa'iido badanna way noo dhashay qaabka wax loo beertaba iyana lagu barayay oo waa tii broadcast saa muxuu ahaa la seerin jiray waxa la baray qaab layna oo meteorological faa'iido badan baa laga helay kaasina waa noo socdaa